nasiib ayay u yeelatay inay ka soo badbaado badweynta. Waxa ayna timi jasiirad cidla ah. Dhinaceeda ayay fiirinaysaa kadibna waxay arkaysaa saaxiibkeed oo biyaha ku carqamay. Waa isku naxaysaa ilaa ay afka qabsato kadibna ku aragto nabarkan halista ah. Way qaylinaysaa laakiin cid maqlaysa ma jirto. Meeshana waxaa jooga iyaga oo keliya. Waa ay soo jiidaysaa saaxiibkeed si ay u caawiso. Ugu dambeynna waxay garanaysaa inuu u baahan yahay biyo. Waxayna u cararaysaa kaynta si ay wuxuun biyaha uga soo hesho. Laakiin waa ay weynaysaa halkanina maaha meel biyo yaalaan. Ugu dambeynna waxay heshay qumbahan. Kadibna waxay uga raadinaysaa biyo si ay u jebiso dhexdiisa. Waa ay soo qaadaysaa kadibna waxa ay u keenaysaa saaxiibkeed si ay afka uga shubto. Laakiin waa mid bari hore dhintay. Waan hubaa inaad ilowday inaad muuqaalka like saartid channelkana subscribe soo tiraadid. Aad ayay u murugoonaysaa. xaaladuna sida ay qiyaasaysay waa iska bedeshay. Jasiiradani waa mid aad u halis badan, waxaana jooga bahal aad u xoog weyn, laakiin maaha iyadu mid dareensan. Gabadhan waxaa lagu magacaabaa Jane. Waxay u soo dhaqaaqaysaa dhanka iyo kaynta si wuxuun ay uga hesho. Waxay helaysaa boorsadan la dul saaray geedka. Kadibna waxa ay ka soo saaraysaa daawadan. Waana daawo 20 sano ka hor dhacday. Waxay arkaysaa talaagadan. Kadibna waxay arkaysaa inay ku dhex jiraan dhowr xabo oo Coca-Cola ah. laakiin 20 sano ka hor iyaguna dhacay. Si kadiisa sanduuqan ayay u heshay. Waxayna ka heshay taraq. Waxay gaafureegaysaa jasiiradda si wuxuun ay uga hesho. Ilaa markii dambe boorsadan ay ka heshay boonbalahan iyo sidoo kale buugan. Jane waxay isturaysaa meydka saaxiibkeed. Waxa ayna dul saartay caleemahan iyadoo aad u murugsan. Xilli habeennimo ayaa la gaaray. Halkaas ayay habeenkii seexatay. Waagii ayaa bariyay. kadibna badii ayay u soo raastay waxay cunto ilaa ay kalluunkan aragtay badda ka soo caariyay. Waa ay soo qaadatay waxayna ku ridatay talaagadii ay heshay. Alaabtii ay heshay mid ka mid ah buugaagtii ayay akhriyaysaa. waxayna ku arkaysaa sawirkan. Waa soo dhaqaaqaysaa waxa ayna imaanaysaa meeshan cidlada ah. waxa ayna isku dayaysaa inay hesho cid hore ku noolaan jirtay jasiiradan. waxay u soo dhaqaaqday dhankii saaxiibkeed. Jane waxay dareentay urka meydka saaxiib. waxa ay qabsanaysaa sanka. waa ay soo jiidaysaa waxayna isku dayaysaa inay asturto ilaa ay godkan weyn u qoday. kadibna ay caleemo iyo ciid dusha ka saartay. waana xaalad uu qiyaasi karo qofka ay ku dhacdo. habeennimadii ayaa la gaaray. Jane waxa ay shidatay dabkii. kadibna waxa ay dubanaysaa kalluunkii ay saaka soo qabsatay. si degan ayay kalluunkii u cunaysaa. waagii ayaa bariyay. mar kale waxay u soo jehaysatay dhanka xeebta. kadibna waxay arkaysaa wax lama filaan ah. iyadoo aragtay in meydka saaxiibkeed lagala baxay godkii. waa isku naxaysaa xaaladuna waa isku bedeshay. waxay u diyaar garoobaysaa inay diyaarsato hubkii ay ku dagaalami lahayd si ay isaga celiso bahalkan meeshan jooga. habeennimadii ayaa la gaaray. waxa ayna gashay difaac iyadoo waran ka samaysatay alwaaxan. dhabarkana u sii jeedisay dhanka xeebta. waxa ayna difaac kaga jirtaa jihada kayntu ka xigto. waxa ay maqlaysaa cod iyo saranqadh. indhaha ayay kala furaysaa. habeennimadii oo dhan ma aysan seexan. waagii ayaa u bariyay iyadoo sideedii u soo jeeda. boorsadan soo caariday. dabaal ayay ku gaaraysaa meeshii boorsadu taallay. waa ayna soo qaadaysaa. waxa ay furtay boorsadii waxayna ka heshay kabahan. habeennimadii ayaa la gaaray. kadibna waxa ay dib u furtay sanduuqii. waxa ayna ka heshay sawirro kale oo dheeriya. hal mar ayay maqashay cod dhawaqa oo ka imaanaya dhanka kaynta. kadibna way carartay. Jane waxay heshay baaskooladan loo yaqaano Flegan. waxayna isku dayaysaa inay jihada badda u tuurto si caawinaad uga hesho maraakiibta maraya badweynta. laakiin si khaldan ayay u tuurtay. kadibna waxa ay fiirinaysaa iftiinka ku dhacay badda. laakiin hal mar waxay arkaysaa badda uu dhex taagan yahay bahalku. waa ay soo cararaysaa. waxayna isku dayaysaa inay warankeedii ay raadsato. kadibna waxa ay ku dhuumanaysaa geedahan dhexdooda. halkaas ayayna kaga nabad heshay bahalkii xalay. waagii ayaa bariyay. Jane waxa ay wadaa weli baaritaankii. laakiin waxay si kadiisa hal mar uga arkaysaa sawiradii gabadhan isku sawirtay geedka. bahalna uu taagan yahay gadaasheeda. warankeeda ayay soo qaadanaysaa waxayna isku dayaysaa inay daban u dhigto. laakiin hal mar waxay arkaysaa saaxiibkeeda oo badda ka soo caariyay mar labaad. bahalkiina uu cunay qaybta hoose ee jirkiisa. waa ay soo jiidaysaa ilaa ay wejigiisa fiiriso. Jane waxay isku dayaysaa meydka saaxiibkeed inay ku ugaarsato iyada oo doonaysa inay ku badbaado caawa. habeennimadii ayaa la gaaray. Jane waxa ay qodatay god dheer ay ku dhuumato. bahalkiina waa yimi. Jane waxa ay ka daawanaysaa halkan. laakiin xaaladda sida ay qiyaasaysa waa ay ka duwan tahay. hal mar waxay aragtay bahalkii kor taagan. godkii ayay ka soo baxaysaa wayna cararaysaa ilaa uu markii dambe bahalkii uu gacanta ku dhigay. warankii ay haysatay ayay caloosha ka gelinaysaa. laakiin bahalkii Jane waxa uu ku dhufanayaa dharbaaxo. waa uuna isqariyay. subaxnimadii ayaa la gaaray. Jane waxa soo gaaray dhaawac aad u halis badan oo ka soo gaaray dhanka lugta. biyaha ayay gelaysaa. kadibna waxay isku dayaysaa inay ku meyrto dhiigga. Jane waxa ay gashatay dharkii ay ka heshay boorsada. Jane waxay si lama filaan u arkaysaa doonidan. kadibna way soo dabaalanaysaa ilaa ay ag timaado. waxayna arkaysaa labadan qof ee doonida saaran.
ninkan waxaa lagu magacaabaa Lucas halkan gabadhan lagu magacaabo Mie waana saaxiibadeedii ay soo kala lumeen aad ayay u gaajeysan yihiin Jeanna waxa ay u dubaysaa kalluunkii ay shalay soo qabsatay iyo Coca-Cola 20 sano ka hor dhacday markii ay cuntadii dhameeyeen ayay u waramaysaa Jean waxa ayna leedahay halkan waa meel aad u halis badan waxaana jooga bahal khatartiisa leh waa uu soo weeraray ilaa uu dhaawacay Jean waxa ay leedahay fiiri sawiradan gabadhan iyo faamilkeedii oo dhan waxa cunay bahalkan Jean waxa ay timi xeebtii kadibna waxa ay kalluunka ugu goynaysaa mindidana uu siiyay saaxiibkeed Lucas dib ayay ugu soo laamanaysaa waxayna leedahay Aamina waa ina halkan ka tagnaa oo doonidan qaadanaa laakiin way ka diidayaan waxay leeyihiin waa ina halkan joognaa kadibna waxa ku soo dhacaysa fikrad waxayna isku dayaysaa inay kala baxsato saaxiibadoo doontii yarayd hal mar ayaa gabadhan arkaysaa kadibna waa ay qaylinaysaa ilaa ay ku soo ordaan waa isla quuseen ilaa Jean biyihii lagu cadaadiyay kadibna dhagax badda hoosteeda yaalla ay madaxa ku dhufsatay waa ay soo qabanayaan habeennimadii markii la gaaray Jean ayaa indhaha kala qaadaysaa kadibna waxay arkaysaa in xarga ku xirxiran yihiin gabadhan ayay leedahay iga furo xargahan xilliga la joogo waa habeennimo cabsi badan ayay dareemaysaa Jean si kadisa gabadhan ayaa xeebta u tagaysaa waxayna arkaysaa kalluunka ayay isku dayaysaa inay soo qabato laakiin waxay arkaysaa kalluun la cunay waa ayna yaabaysaa Lucas shaki yar ayaa galaya ilaa ugu dambeyn isagoo Jean la taagan uu arko in saaxiibtiis la qaatay qori dab ayuu la soo cararayaa waxaana ku dhufanayaa bahalkii laakiin bahalku dharbaxa ayuu Lucasna waxa uu ku dhacayaa meel fog Jean waa ay xiran tahay nasiib wanaag xargihii ayaa u furay waa ayna soo orday waxa ayna soo jiidaysaa saaxiibkeed Lucas si ay naftiisa u badbaadiso subaxnimadii ayaa la gaaray Lucas iyo Jeanna waxay ku heshiinayaan in sida ugu dhaqsiyaha badan ay ka tagaan halkan doonidooda yarna ay aaminaan Jean waxa ay fiirinaysaa xagga sare waxayna arkaysaa in roob xoog badan uu soo socdo way ay jiidayaan doonidii si ay biyaha u gaarsiiyaan halkaana waxa uga bilowday safarkoodii badda ma garanayaan jihada ay u socdaan laakiin waxa ay door bideen inay dhaanto halkani in yar kadib doonidii ayaa la gariiraysaa bahalkiina waa uu soo weerarayaa xagga hoose ee doonida ayuu soo jeexayaa bahalkii ilaa uu madaxa kala soo baxo Lucas ayaa isku dayay inuu bahalka ku celiyo laakiin waa awood weynayaa ilaa markii dambe uu faleelgan ku dhufto bahalkii biyaha ayuu ku noqonayaa isagoo dhaawaca waxay moodayaan inuu ka tagay laakiin hal mar ayuu bacdii soo jeexayaa waxa uuna kala soo dhex baxayaa Jean iyo bahalkii waxay ku maqan yihiin gunta hoose badda Lucasna waa walwalsan yahay Jean waxay isku dayaysaa inay iska furfurto laakiin ma awoodo Jean waxay hal mar la soo baxaysaa mindidii saaxiibkeedu siiyay waxayna isku dayaysaa inay isku badbaadiso waa ay furaysaa mindidii ilaa ay markii dambe dhabarka ka gelisa bahalkii iyo Jean waa ay kala fuqayaan laakiin si kadisa Lucas ayaa u soo dhexgalaya bahalkiina waxa uu qaadanayaa Lucas ilaa iyadoo arkaysa uu godkii la galay Jean waxa ay noqotay kaligeed biyihii ayay ka soo baxaysaa waxayna ku soo laabanaysaa jasiiradii cidlada ahayd iyadoo aad u walwalsan isla markiiba dab ayay shiday waxa ayna soo qaadatay buuggan iyo qalinkan waxay ku qoraysaa fariinteedii ugu dambeysay waxa ayna ka rajo dhigtay in nolol dambe ay u sii harsan tahay sidaasoo tahay waa istifaacaysaa mar kale waxay isku dayaysaa inay taati ka samayso geedahan ayay ka samaysanaysaa waramaan fara badan waxayna isku diyaarinaysaa weerarka caawa waa geeri ama nolol habeennimadii ayaa la gaaray sida caadadaheedna bahalkii waxa uu ka soo baxay badda ilaa uu soo raadiyey Jean waxa ay kayntii oo dhan ku shiday dabkan bahalkii oo raadinaya ayay gadaal kaga imaanaysaa ilaa ay markii dambe warankan caloosha ka geliso waa ay ka soo cararaysaa geedkan ayay kusoo dhuumanaysaa bahalkiina waa uu soo raadinayaa ilaa uu arkay waxay isku dayaysaa inay mar kale weerato ilaa uu bahalkii kor intuu u qaaday geedkan ku dhuftay mar kale ayay bahalkii weeraraysaa waxayna ku dhufanaysaa warankan isaguna wuxuu ku dhufanayaa dharbaaxo way cararaysaa bahalkii waa uu soo jiidayaa ilaa uu markii dambe dhuunta ka qabto balse mindidii ayay mar kale ku dhufanaysaa ilaa ay ku celceliso bahalkiina waa uu dhacayaa halkaas ayuu ku dhintay Jean waxa ay dul imaanaysaa bahalkii iyadoo ku cara burburtay ilaa ay meel kasta ka geliso warankii ay wadatay halkaas ayayna ku badbaaday daawadayaal filimkeena maanta halkaas ayuu nagu egyahay waan hubaa inaad ilowday inaad muuqaalka like saartid channelkana subscribe soo tiraadid waa ku mahadsan tahay daawashada muuqaalka tan iyo inta iskaga imaan doona muuqaalka xiga waxaynu kaga tagi doonaa sidaas iyo nabadgelyo